maxamed cabdulaahi cali waxa uu ka warramayaa dhibaatooyinkii ay bulshadu ku qabeen burburka wadooyinka xaafadda tawfiiq ee magaalada baydhabo haatanse dib loo habeeyey mashruucan wali ka bilaawday markii baahidii oo bulshada aan qabtay jidkan oo la suubiyay markii ugu fiiriyeen oo iska dhahnaqdeen ay wali go'aamiyeen inay oo jidkan suubisadaan oo bulshada eedan ka rafaadanayti dib u habeynta wadadan waxa iska kaashaday dadka ku nool xaafadan oo garabsanaya hay'adaha Somri shaqadoona ay ka caawisay dhanka tababarada iyo dhismaha gudiyada shaqadan ku hawlan shaqado meeyni caawiday tababar badan siidin sa'ala la sidii linka aruuri lahay akoonka beesadan iyo tababarti gudini sameeytay todoba qof ku saabsan lix magale iyo qofta bilaamay gudoomiye ku xigeen ay xaq hayshaleeyay dadka ku nool deegaanka tawfiiq waxa ay leeyihiin qorshe dhaqaale ururin oo ay hirgelintooda door weyn ka qaadatay shaqadoon akaunka xaafadda tawfiiq wali la ka suubiyay degmada la saadi wali la suubiyay dhalashilan suubi akaunkii dadkii oo ka saxiisanaayeen leen qori markaas ku dib akaunka suuy wali oo horseed anagda inay jidkan mashruuc laga fuliyay in la ka aruuri waana kuwan iyaga oo ka warramaya waxa ay uga dhigan tahay wadadan ay tacab gasheen jidka oo uu wala ka darsanay oo inshada contribution show aruurini wali jiditeeda kale oo hay'ado dhisaan wali ku guduwinyaha lankasta wali account ku baahay mas wali oo beese uu ku batiya fiiriye marka jidkaas way lankasta ilaaliya oo inshada contribution ku qaaday saas daraadii marka macni weyn ka fadhiyay bulshadana walwiin aan tari marka contribution kaas way dadka aruursadeen wal kasta hobbliska darsoona dadka inta badan ilaaliyaan marka saas daraadii hoob wal hay'adeed ee mas'uul dawladeed ee lankasta si uu fadaan la dhagama faday laakiin hadda dadkii oo beesidii la ku qaaday oo xaafado leen garaac beesidii la ku qaaday ba jidjo hortii hoob arla ka deedii mas'uul kala la ka deedii ma jidkii uu dhisanahay walaashay min ogoliinay leeyin saas daraadii marka macni weyn ka fadhiyay xaafad مشروع مالي ونكو برناه ما يبغى يعني أنتي ما يلراي بالشدة حديب ما يبغى يعني جرين كفيلن هلان أما ما يلراي مسؤول مركزيتي ما يبغى أنقول على يوم ما يلراي ريمو بالشدة يهلان إنه إسكتلا ذا كوران ولا نقب صدق كوران ما يلراي سلوا يعني والكست أو مركزيتي لان هردر يرون ما يبغى يعني يو أنميدو كوران ما يبغى يعني هرمر صدق كوران صدق ودهم أكل